maanta oo khamiisa golaha wasiiradu waxay yeesheen kulankoodii caadiga ahaa oo khamiislaha ahaa waxay warbixino ku kala qaateen arrimaha dalka ka taagan ee dhinacyada amniga siyaasadda dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada ay wasaaradaha qaar ay warbixino bixiyeen sidoo kale waxay golaha wasiiradu maanta ka doodeen arrimaha maamul goboleedyada oo bariyahan dambe ay soo baxeen dad ku shaqeynaya sharciga banaankiisa ummadana been u sheegaya marmarka qaarkood been u fasiraya gaar ahaan waxay wasiiradu ka doodeen doorashooyinkii kala duwanaa ee ka dhacay magaalada Kismaayo ee caasimadda ku meel gaarka ah maamul goboleedka Jubaland golaha wasiiradu waxay ayideen go'aankii wasaaradda arrimaha gudaha ay soo saartay 22 August 2019 oo ay ku sheegtay in dawladda Soomaaliya u aragto dhammaan doorashooyinkii ka dhacay magaalada Kismaayo 22 iyo 23 August 2019 inaanay marin habraaca dimuqraadi ah oo xor iyo xalaal ah natiijooyinkii ka soo baxayna ay yihiin waxba kama jiraan golaha wasiiradu waxay wasaaradda arrimaha gudaha ku amreen inay soo diyaariso habraac faahfaahsan oo la xiriira qaabka loo wajahayo iyo sida loo xalinayo xaaladda maamul goboleedka Jubaland iyo magaalada Kismaayo taasoo ay wasaaraddu sida ugu dhaqsaha badan u horkeeni doonto golaha wasiirada sidoo kale waxay warbixin ka dhageysteen guddi golaha wasiiradu ayaan dhaweyd u saareen toddobaadkii hore u saareen qaraar ay dawladda Soomaaliyeed u aragtay inuu dhibaato ku ahaa nolosha shacabka caadiga ah dadka Soomaaliyeed caadiga oo la horgeynayay golaha amniga ee qaramada midoobay oo qaraarkaas oo nambarkiisu ahaa 1267 oo alxamdulillah lagu guuleystay in dawladda Soomaaliyeed iyo dawladaha saaxiibka laahi u arkaan qaraarkaasi inuu dhibaato ku yahay shacabka Soomaaliyeed dabadeedna la joojiyo la celiyay oo golahu aanu laga celiyay dawladda Soomaaliyeed waxay mahad ballaaran u jeedinaysaa dawladaha saaxiibka ah ee ku taageeray dawladda Soomaaliya dib u celinta qaraarkaas oo sidaan sheegay waxyeello u geysan lahaa nolosha shacabka Soomaaliyeed ee muddada badan dhibaataysnaa dawladda Soomaaliyeed waa dawladda geeska Afrika marka la dhaho dagaalka ugu adag kula jirta kooxaha nabadiidka iyo argagixisada waxaynay cadaynaysaa inay hormuud u tahay la dagaalanka argagixisada iyo ka ciribtirta geeska Afrika iyo wax kasta oo lagu wiiqayo in kooxaha argagixisada ay dib u geystaan shacabka Soomaaliyeed iyo shacabka wadamada dariska ah iyo kuwa adduunka hormuudna Soomaalidu ay dawladda Soomaalidu u noqonayso la dagaalanka argagixisada golaha wasiiradu waxay ugu baaqayaan waxgaradka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan gudaha iyo dibadda inay dawladda Soomaaliyeed ku taageeraan difaacidda masiirka iyo danaha qaranka oo loo midoobo xilligan oo ummadda Soomaaliyeed ay ka soo baxayso ama dawladnimadeedu ay kabanayso laakiin culays badan ay saaran yihiin aad iyo aad baa u mahadsantahay